faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal khasaare geystay oo ka dhacay deegaanka Mir Khalife oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya hadda ay maamusho. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dagaalku u dhaxeeyay laba maleeshiyo beeleed oo wada deegaankaasi ay ku wada dagaalameen. Inta la xaqiijiyay 12 ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday, kuwa u badnaa maleeshiyaadka dirirtu dhaxmartay. wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay sidoo kale sheegayaan in labada maleeshiyo beeleed weli ay hor fadhiyaan dadka deegaankana cabsi xoogan ay ka muujinayaan in mar kale dushooda lagu dul dagaalamo. xiriir kala duwan aynu la sameynay maamulka dowlad deegaanka Soomaalida, mas'uuliyiin ka tirsan ayaa waxa ay ka gaabsadeen inay wax faahfaahin ka bixiyaan, balse waxa ay noo sheegeen in ay ku baxeen mas'uuliyiin ka tirsan Somali State dirirtaasi u dhaxayso labada maleeshiyo beeleed. warar hoose oo helayso Kalsan TV ayaa waxa ay sheegayaan in sidoo kale dagaalka ay ka qayb ahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa Liu Police, inkastoo wararkaasi aysan jirin cid xaqiijin karta. Cadnaan Kaabul, Kalsan TV, Muqdisho.